bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaasha qiimaha leh kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteeni wararka qodobada maanta idinku hayno waxaa ka mid ah xildhibaankii su-aasha adag weydiiyey madaxweyne Deni oo maxkamad la soo taagayo xogeyaha qaramada midoobay u qaabilsan ergeyga qaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee James Wan oo ku walaac ka muujiyay fatahaadaha webiga Shabeelle iyo Jubba tahriibiyaal kale oo laga dhaxlay gaari xamuul ah ee wadanka Belgiumka wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Beledweyne saddex muushin oo laga gudbiyay kheyr oo fashilmay iyo ganacsatada magaalada Muqdisho oo 1 milyan oo doolar ugu deeqay dadka ee uu saameeyay fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle inta ay qodobo kale xiiso leh ayaad ku maqli doontaa barnaamijkeeni marka aan sii guda galno qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa hadduu Ilaahay yiraahdo wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Beledweyne ayaan ku bilaabaynaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarayo oo xubinka ah guddiga qaranka ee gurmadka fatahaadaha ayaa sheegay in gurmad ballaaran uu maanta gaari doono magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale wasiirka oo ka warramayay xaaladda fatahaadaha ayaa sheegay in 24 saac ee la soo dhaafay aysan wax ka soo darin xaaladaas ama wax dhibaato ah ka dhicin dhammaan deegaanada sidii ay ahaayeen 24 saac ka sii horeeyay isagoo xusay in goobta ugu khasaaraha badan ay tahay magaalada Beledweyne ilaa iyo hadda waxa ugu dhibaato badan khasaaraha ugu badan oo dadka ka dhacay ay tahay dalka ka dhacay ay tahay degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan runtii dad gaaraya 300,000 oo qof ayaa ku barakacay dad kale oo badilna way qaxeen guryahoodii iyaguna ka sii qaxeen iyo ka badanba dhammaan wixii ay haysteenna way baaba'een oo ku sugan meel aad u kooban oo Beledweyne duleedkeeda ah ayuu yiri wasiir Maaraye wasiirka ayaa hadalkiisii ku daray in ay jiraan meelo kale oo fatahaado ka dhaceen oo ay ka mid yihiin degmooyinka Baar Dheere Balad Xaawo oo ku wadsan gobolka Gedo halka magaalada Bardaale ee gobolka Baay roobab xoog leh oo ka da'ay ay sababeen inay biyo badan ku rogmadaan magaalada taasi oo aan ahayn biyo ka yimid webiga balse roobabka ay keeneen daadad xoog badan oo sababay inay dadku ka barakacaan magaalada mudane Maxamed Cabdi Xayir Maaraye ayaa sheegay in dowladda federaalka ay guddi heer sare ah u magacaawday arrintan isagoo intaa ku daray in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay baaq ka soo saareen in loo gurmado dadka ay saameysay fatahaaduhu wasiir Maaraye ayaa yiri runtii dadku waa ay u baahan yihiin taakuleen dawladdu wixii karaankeeda ah way geysay inkastoo airportka Beledweyne uu naga xidhnaa 2 maalmood waxaa nasiib wanaag ah inuu hadda dib u furmay oo galabta naloo sheegay inuu airportku furan yahay maanta waxaa tagi doona wafdi ballaaran oo ay xubnaha guddiga oo dad badan ka socda baarlamaanka Soomaaliya iyo dad kale oo technical ah sidoo kale shaqaalayaal ka socda wasaaradaha ayaa iyaga tugan oo gargaarka ka qayb qaadan doona hadduu Ilaahay yiraahdo dowladda Qatar Turkiga iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa sheegay in dhankooda ay gacan ka geysan doonaan kaalmo gaarsiinta dadka fatahaaduhu ay saameeyeen qodobka xiga wuxuu noqon doonaa tahriibiyaal kale oo laga dhaxlay gaari xamuul ah dalka Belgiumka ilaa iyo 12 rag ah ayaa laga dhaxlay gaari xamuul ah oo qaboojiyaal ay ku xiran yihiin oo yaala meel gawaarida la dhigto oo ku taala gobolka Antwerp ee dalka Belgiumka sida ay booliska dalkaasi sheegeen booliska waxa telefoonka ka wacay dawralkii gaariga oo sheegay inuu ka shaqeeyay dad ay ku dhex dhuumaalaysanayeen gaarigiisa oo qudaarta qaada waxay ahaayeen 12 qof oo u dhalatay dalka Suuriya iyo hal qof oo u dhashay dalka Suudaan dhamaantoodu way bad qabaan waxaana lagu wareejiyay saraakiisha socdaalka isbuucii la soo dhaafay ilaa iyo 39 qof oo meyd ah ayaa laga dhaxlay gaari xamuul ah oo la mid ah midka maanta oo kale oo maanta la qabtay oo kale oo yaalay dalka Britain darawalkii gaariga ee dalka Britain ka waday ayaa ka soo safray Belgium ayaa lagu soo oogay dacwadaha inuu dalaayay waxaa la aaminsan yahay in dadkaas dhintay ay ka soo jeedeen Vietnam iyo Mashiinaha kuwa oo ujeedkeedu ah inay si sharci darro ah ku galaan dalka Britain wali ma cadda sida ay ku dhinteen oo noqon karta in qabowga uu dilay ama uu naqasku ku dhigay gaariga xamuulka waxa uu taagnaa meel weyn oo gawaarida la dhigto oo ku dhinaca taala wado lagu magacaabo Oud-Turnhout wadadaas weyn waxay isku xirtaa dekedda Zeebrugge ilaa waqooyiga Jarmalka sanad kasta kumanaan qof oo muhaajiriin ah ayaa si sharci darro ah isku daya inay Yurub ka soo galaan dhanka bariga ee qaaradaas ka soo safra waxay isku dhex qariyaan gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada gawaarida xamuulka qaada ee qaboojiyaasha leh waa kuwa ay markasta ku dhex dhuuntaan dadka tahriibiyaasha ah sababtoo ah waxa aad u fudud in looga gudbo baraha kontaroolada ee qalabka casriga ah ay ku jiraan ay ku rakiban yihiin sida uu sheegay ay afayeen u hadlay laanta gawaarida ee Belgiumka ganacsatada Muqdisho oo 1 milyan oo doolar ugu yaboohay gurmadka fatahaadaha
waxaa magaalada muqdisho shalay lagu qabtay kulan uu soo qaban qaabiyey rugta ganacsiga Soomaaliyeed kaas oo iyabo dhaqaale loogu ururinayay dadka uu saameeyay fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle iyadoo dhibta ugu daran ay gaartay dadka ku nool magaalada Beledweyne. ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday in wejiga hore ee gurmadka ay uga qayb qaadan doonaan 1 milyan oo doolarka Mareykanka ah, waa lacagta Mareykanka, waxayna sheegeen inay haatan gacanta ku hayaan 630,000 oo doolar iyadoo inta hadhay oo ah 370,000 ay soo ururin doonaan usbuucan gudihiisii. ganacsatada suuqyada Bakaara iyo Suuq Bacaad ayaa ballan qaaday in iyaga ka soo ururinayaan lacagta hartay si degdeg ah loo gaarsiin doono dadka u baahan ee fatahaadaha webigu ay saameeyeen. gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed Cabdikariin Gabayre ayaa ka tacsiidiyay dadkii ku dhintay fatahaadaha, wuxuuna ganacsatada faray inay kaalin ka qaataan dadaalada socda ee lagu gurmanayo dadka uu saameeyay fatahaadaha. waxa uu carabka ku dhuftay in fadhiga maanta ay kasoo xaadireen hogaanka 35 shirkadood oo ka mid ah kuwa ugu caansan magaalada Muqdisho, isagoo rajo ka muujiyay in gurmadka loo ururinayo uu si degdeg ah u gaaro dadka loogu talagalay. kulanka sidoo kale waxaa ka qayb ahaa waxaa kasoo qayb galay cilmi awdiin iyo ganacsato kala duwan.